annaga xitaa diriska qaadanayna madaxweyne ciidanka fasaxo xasan sheekh iyo fiqi oo maxbuusa hargeysa igu dhaxkeen maalintaas dhiigaygu xalaaloobaya xilligii la soo qaban la xasan iyo fiqi hargeysa la igu dhaxkeen laabay la gaadhay inamada reer sheekh saxaaq iyagoo 4 xaba ah ay dawladda Soomaaliya intii leekadu babacdhigeen maanta aan dawlad dhowreysa doonsana ahay oon hub haysto oon ciidan haysto oon buur ku tiirsanahay Israa'iil la yiraahdo madaxweyne hayga joojinay ninkaas oo maxbuusan ka raba maanta reer raas caanadu waxaan leeyahay xasan sheekh haduu idin rabo 8 bilood على مساركيني 8 bilood muu mareen xasan sheekh idin ma rabo laakiin anagu naga xindha xirkaya idinku ma waxa tihiin dad macna lahayn oo maalintii la doono kabtooda la gashado maalintii la doono la tuuro idinka bareeyna inagoo walaalo ah oo dad Soomaaliland dariina oo walaalo ah intaad xanuunka iska daysaan iyo xasan sheekh oo idinku danaysanaya iska saara xasan sheekh oo idin soo gal waana ahayn oo soo galay alxamdulillah rabbil caalamiin waxaan salaamayaa dhamaan shacabweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland meel kasta daafaha dunida ka joogan waxaan ugu hambaleynayaa ictiraafka aynu ku helnay dawladda Israa'iil insha Allah dawlado badan oo kalena way soo socdaan waxaan leeyahay waa guul weyn inuu gaadhnay inagoo shuruudihii adduunka oo dhan buuxinay nabad deganaan xasilooni wax walba ka buuxinay intii looga baahnaa dal horumar leh ciidankii qaranka wax kasta haddana inaynu maanta dawladii furayaasha adduunka hayso oo weyn aynu ictiraaf ka helnay walahi hadii dawladaha kale aynu ka heleen marka ugu horeysa waa banixi lahaa anagu laakiin Israa'iil waxa weeyaan furayaasha adduunka Mareykanka la sheega Israa'iil buu bariyaa marka waxaan leeyahay waa Ilaahay mahadii hadii Israa'iil inoo timid xataa hadayna cid kale inay ictiraafino Israa'iil oo kaliya ayaa inaga badan oo ama buur ah baa leeyahay ama buur ku tiirsano horta buur baynu ku tiirsanahay marka waxaan leeyahay dawladda taagta daran ee xasan sheekh maxamuud xasanow area filo muqdisho ma dhaafsisna awoodaadu shalay bay ahayd meelaha qaar kood marka kun qof ku naf waayeen eenad ka digiguxoon marka waxaan ku leeyahay aad adigu dadkaaga qaraxooda in kun qof meel ku dhintaan aad lacag ku bixiso si xukunka aad u sii joogto si aad lagu sii dhageysto maalin walba qaraxaada lacag ku bixiya marka waxaan ku leeyahay xasanow halkan qarax kama jiro shacab soo wada taagan oo indhahoodu wada furan yahay oo iyagu wada sirdoona ayaa jooga oo wada askara marka waxaan leeyahay cid waxay naga qaadi kartaa ma jirto reer Soomaaliland Ilaahay baa mahad leh inaanan waligeey la midoobi doonin inaanu ka go'onay yaa inaanu inta ka maqnay Ilaahay baa mahad leh waayo anigu de inanta age-kaygi ma bay arag qarax ma bay arag xabad dhacaysa marka Ilaahay baa mahad iska lahood iiga dhaliyay aniga Soomaaliland dariga dhigay oo inanta Muqdisho joogtay anigu waan kala nasiib badanay inanta Muqdisho joogta dabla ayaan haybteeda la aqoon ba ka shaqeysa anigana ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ba ka shaqeeyo 4 habeenimo baabuurkayga aniga wata ayaan saa u dhextaxaasha aroos intan ka imaado saddexda ayaan casho u doontaa suuqa deedna aan iska socdaan gurigayga tagaa nabad marka miyaanan kala nasiib badanayn inanta Muqdisho joogtaana maalin gaari ma kaxayn karto waa inuu ciidan wado marka waan kala nasiib badanahay alxamdulillah rabbil caalamiin fiqi xub caaro waxaan leeyahay intaad aniga ii soo hanjabayso ee maalin walba ka sheekeynaysid qarankayga iyo dadkayga tashaday wala aad waxaad ka sheekaysaa deegaankaaga Galmudug halkuu maray Galmudug baad ka soo jeeday ee deegaankaaga halkuu maray ma leeyahay saldhig boolis deegaankaagu ma leeyahay xarun caafimaad waa maya Galmudug baad ka soo jeedaa wala marka Galmudug taadi dib ugu noqo ka tashanay tan waa loo taliyo dadkii lahaaba u taliyay waxaan leeyahay xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland xasan sheekh oo maxbuusa waa inaan arkaa waa in la soo qaadaa hadaba inoogu dhowdayba laas caanood haduu yimaado xasan waxaan leeyahay isagoo maxbuus oo hargeysa dhex taagan waa inaan arkaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan leeyahay madaxweyne ciidanka fasax ninkaas oo maxbuusaan rabnaa waanan aaminsanoo maanta shacabka Jamhuuriyadda Soomaaliland ciidanka qarankuba maanta way midaysan yihiin dadku waa mid annaga xitaa diriska qaadanayna madaxweyne ciidanka fasaxo xasan sheekh iyo fiqi oo maxbuusa hargeysa igu dhaxkeen maalintaas dhiigaygu xalaaloobaya xilligii la soo qaban la xasan iyo fiqi hargeysa igu dhaxkeen laabay la gaadhay madaxweyne waan ku baryayaa inamada reer sheekh saxaaq iyagoo 4 xaba ah ay dawladda Soomaaliya intii leekadu babacdhigeen maanta aan dawlad dhowreysa doonsana ahay oon hub haysto oon ciidan haysto oon buur ku tiirsanahay Israa'iil la yiraahdo
madaxweyne hayga joojinine ninkaasoo maxbuusaan kaa rabaa maanta xasan sheekh oo maxbuus ay igu dhex keen Hargeysa reer raas caanad waxaan leeyahay xasan sheekh hadduu idin rabo 8 bilood على مساركيني 8 bilood muu mareen xasan sheekh idin ma rabo laakiin anagu naga hindha xirkaya idinku ma waxa tihiin dad macna lahayn oo maalintii la doono kabtooda la gashado maalintii la doono la tuuro hadda waxaan leeyahay inamadiina iyo dadkiina masaakiinta ay intii yareed soo kabateen waa la burburinaya xasan sheekh idin kaga duulin xasan sheekh iska celiya hadda iska celin weydaan oo xasan sheekh laas caanood imaadana balan waxaan ku qaadnay xasan oo maxbuus in Hargeysana loogu keenay inamadiinuna sida u dhiman doonaan laakiin waxaan idin ka baryaynaa inagoo walaalo ah oo dad Soomaaliland dariina oo walaalo ah intaad xanuunka iska daysaan iyo xasan sheekh oo idin ku danaysanaya iska saara xasan sheekh oo idin soo galin waan ahayna uu soo galay laguma kala tagay xasan oo maxbuus la soo qabnay wixii la jiiri karana waa la jiiraya laba kuma wada hadlayso waa la jiiraya wixii la jiiri karo